رقعداء سياسي أو قصص ورد بلشة غير كاب وسياسة ولا يقام أحمد محمد عبد الله أحمد قرع أيوة عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبريتي وحنا مهدلين يا إلهي سبحانه وتعالى يعني نهجاجي ونغير المسلمين. أنت كدبنا mahad celinta iyo bogaadinta waxaan la qabaa rag iga horeeyay oo guddiga qaban qaabada iyo waxgaradka meesha isugu yimid wanaag loo jeediyana insha Allah taala dhinacaygan aan ka bogaadinaya waxaan rabaa markaan u gudbo barnaamijka mawduuca meesha ka socdo la isugu yimid oo ah maamulka cusub ee gobolka Banaadir walaalkeen Xasan Maxamed Xuseen Mungaab oo ka yahay gudoomiyaha soo dhaweyntiisa iyo sagootinta loo samaynayo kii ka horeeyay walaalkan tarsan oo ka ahaa madaxda kuwii horena way soo shaqeeyeen waxaan leenahay shaqadii wanaagsanaayd ay qabteen way ku mahadsan yihiin maayla qofku hadduu dadaalo oo wax qabto oo la dhiirigeliyo oo loo mahad celiyo kan dambe ayaa dadaalaya oo ku dayanaya annagu haddaan Soomaali nahay inta badan ee waqti badan baan sugaynay in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala barnaamij dawladnimo oo ummadda Soomaaliyeed يعني شرع دولة نمو باسبور كودا علن كودا قرنكا كدحية وحاس أمبي بدبادة يوراك وهلين مركزنا أنو إن قادنو حضارة داس دad kan nagana aan ku dhiirigelino oo waxyaabihii saabiqaadka soo dhacay oo dadka naga dhaxmaray in aan ka korno oo afcaashanada iyo ficilkanaga iyo muuqaalkanaga aan dawladnimo u baahanahay uma baahnin wax kale saddexdaas qof walba haduu naftiisa ku fiiriyo in allaha yarda lakum thalatha يعني saddexdaas ilaahay oo nooga raali noqonayo inaan asaga caabudno oo aan cibaadadiisa wax kale la wadaajin inaan ma taqaanaa yani xariga ilaahay qabsano si wada jir ah aan is ixtiraamno isqiimayno kan weyn aan qiimayno kan yarna aan u naxariisano isla markaasna waa aan tunasihu man wallahu Allahu amarka naga qolada oo ilaahay tawaliyana inaan u nasteexayno yani qofkii loo dhiibo taladeena ama Norway ha joogo ama Soomaaliya ha joogo inaan ixtiraamno inaan u nasteexayno inaan toosino laakiin hadii رقعداء سياسي أو قصص السلام عليكم. waxaan u maleynayaa siyaasiyiintii suldaanadii iga horeeyay hadalka goolkiisa ayaga ayaa horay u dhahay marka hore waxaan mahad u celinayaa walaalaha soo abaabulay xafladan sababtoo ah qof kastoo wanaag sameeyo waa in uu helaa jisidiisa ama lagu taanideeyaa marka aniga saad ogtihiin magacayga waxaa Ismaaciil Badiin waxaan ka yimid magaalada Trondheim aad ayaan u faraxsanahay inaan shirkan ka soo galo sababtoo ah waa shir muhiim ah waxaa halkan ka cadeyn karaa maanta in aan taageersanahay dowladda Soomaaliya iyo mudanaha cusub ama duqa magaalada cusub Mr. Mugamba waxaan u maleynayaa Soomaalidu waxay dhahdaa dowlad xumi waxay dhaantaa dowlad la'aan marka saan u maleynayaa waqti aan isagreeno ama aan is dhibaateeno ama qabiil ka shaqeyno waa laga fiican yahay sababtoo ah qof kastoo Soomaaliya jagada ama qofka markuu noqdo madaxweyne ama wasiir noqdo kulligeena ma noqon karno madaxweyne ama wasiir qofku Ilaahay u qoro ayaa noqonaya marka waxaa muhiim ah in aan taageerno waxaa muhiim ah qof kastoo jaga qabto in la taageero si aan u helno nabad marka hore waxaan leeyahay horteed tarsan gudoomiyihii hore waan soo wadaynaa sababtoo ah tarsan la'aantiisa waxyaabo badan ma qabsan lahayn wuxuu qabto shaqo fiican waxaan soo dhaweynaynaa gudoomiyaha cusub ee magaalada Muqdisho ahna gobolka gudoomiyaha gobolka Mr. Xasan Maxamed Xuseen Mungaab waan soo dhaweynayaa in aan taageersanayna waxaa cadeynayso intaan qof oo Soomaaliya maanta oo qof kastaba u soo huray waqtigiisa waxaan u maleynayaa intaan imaan maanta sidoo kale ayagana niyadda ay taageersan yihiin Soomaalida qurjooga waxaan iga codsanaynaa inaan taageerno dowladda